dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladan golaha nabadda iyo dhammaan bahda saxaafadda iyo fanka marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta run ahaantii maanta farxad bay noo tahay in markii labaad aan si heesra ugu qabanno halkan shirweynihii hay-addan garsoorka iyo qiimeynta waxqabadka sanadlaha ah ee maxkamadaha deegaanka. maxkamadaha deegaanku sidaad ogtihiin waxay ka kooban yihiin 11 gobol iyo 95 degmo iyo 6 maamul magaalo. goobtan waxaa ku sugan dhammaan guddoomiyaashii maxkamadahaas. shirkan halkan lagu qabto ee sanadlaha ah laba ujeeddo ayuu leeyahay. mid waxa weeye shirweynaha maxkamadaha oo loo yaqaano court plenum oo lagu eego goldolooyin ka jiray sanadkii la soo dhaafay iyo meelaha u baahan in wax laga saxo. waa shirka lagu saxo dhammaan khaladaadka maxkamadaha lagala kulmay geed socodkii shaqada ha noqoto dhinaca shuruucda iyo cabasho kasta oo ka jirta meesha lagu falanqeeyo lagana soo saaro jiho cusub oo sanadka dambe loogu diyaar garoobayo golahan weeye. qaybta labaad waxaa weeye qiimeynta waxqabadka sanadka oo ay gobolladu ku soo jeediyaan waxqabadka maxkamadaha degmooyinka maamul magaalooyinka iyo gobollada oo halkan lagu qiimeeyo wixii qabsoomay caqabadihii lala soo kulmay iyo jihada cusub ee loo socda intaba. maxkamaduhu sidaad ogtihiin ama hay-adda garsoorka waa tiirka saddexaad ee dowladda ee dhinac kale marka laga eego kan ugu muhiimsan sababtaa waa meesha keliya ee lagu xaqiijiyo sharcigu inuu shaqeeyo dowladnimadana aasaaska u ah. in sharciga ilaalintiisa iyo sarreynta sharciga la xaqiijiyo waxaa astaan u ah ama laga dheehan karaa maxkamadaha iyo nidaamka u shaqeeyaan. muddooyinka u dambeeyey waxaan culays ka saaray maxkamaduhu inay noqdaan kuwa ku shaqeeya hufnaan cadcadaan iyo u hoggaansanaanta sharciga oo keliya kana madax bannaadaan dhammaan faragelinada kala duwan ee dhinacyada kaga iman jiray. maxkamado maanta waxaynu haysanaa madax bannaan garsoorku wuu qoolan yahay shaqada uu hayo keliya culays meel kale ka yimaada aanu jirin. arrintaasina waxay sal u tahay in dadku ay helaan xuquuqdii dastuuriga ahayd ay xaqa u lahaayeen. maxkamadaha waxaa yimaada khilaaf kasta oo bulshada dhexdeeda ka dhaca oo xal loogu heli waayo bannaanka. waa meesha lagu xaliyo dhibaato kasta, waa meesha dadka laysugu keeno, waa meesha xuquuqda shakhsiga iyo taguudba lagu xaqiijiyo. marka maxkamaduhu maadaama yahayn astaanta sarreynta sharciga, ilaalinta xuquuqaadka kala duwan iyo hirgelinta dimuqraadiyadda muhiimadda ay leeyihiin waxaad in badan oo bulshada ka mid a markii la eego way ka ballaaran tahay sida loo yaqaan. waa meesha keliya ee damaanad u ah shakhsi kasta oo xadgudub tirsanaya noocu doona ha noqdee. marka waxayna saaran dhammaanteen in la ilaaliyo maxkamaduhu inay noqdaan kuwa ku shaqeeya sharciga ka madax bannaanaada faragelin laguna taageero adeega ay bixinayaan si bulshada ay u hesho adeegii ay xaqa u lahaayeen ee sharciga ku qutumay. shirweynaheennan waxyaabahan ku eegayno waxaa weeye guulihii la gaaray sanadkan intaynu geedtocod ku soo jiray maxaa inoo qabsamay u baahan in la sii xoojiyo. caqabadahaan la soo kulanay maxay ahaayeen iyo jihada aynu soconaynaa teebay noqonaysaa, maxaa laynooga baahan yahay. dhinaca qiimeynta waxaa lagu fiirin doonaa kiisaskii la soo qaaday, nidaamkii loo qaaday, wixii dhibaato ah ka jirtay iyo sida la rabo in loo saxo. sanadkan waxaan sameynay kormeer dhammaystiran oo dhammaan maxkamadaha la gaadhay oo lagu soo xaqiijinayay habka kiisaska loo qaado oo aan culays ka saaray tayada inaan xaqiijino kiisaska la qaado.
file auditing ama fileka in la baadho lana xaqiijiyo sharciga inuu waafaqsan yahay nidaamka loo maray iyo in kale culayska ugu badan baan sanadkan saaray dhammaan maxkamadahana waa la gaadhay waxaa kaloo noo suurto gashay in dhammaan maxkamadaha anagoo ka duulino baahiyaha jira iyo meelaha gobolooyinka ka jireen inaan dareennay inaan tababar gaadhsiino dhammaan garsoorka deegaanka ka shaqeeya guud ahaantiisba waa sanadka keliya aynu ku guulaysanay inaan si isku mid u gaadhsiino garsoorka oo dhan tababar ay uga faa'iideeyaan bulshada ay adeegga siinayaan oo buuxinaya meelaha ay caqabadu ka jireen ama dhibaatooyinka ay ka jireen ee fahamdarada dhinaca sharciga waxaa lagu eegi doonaa dhinaca macaamiisha iyo qanacooda maxaa ka jira maxay yihiin cabashooyinka ka yimaada qaabkaynu u xallinaa sidaynu u wajihi doonaa ma dhow wixii aynu la soconle sanadkan waxa ayaan la socon doontaa anshaxa oo tan ugu muhiimsana garsoorku sidii riwaayadda aad ku arkayseenba haddii waddada laga leexdo waxaa abuurmaya cadaalad darro waxaa abuurmaya in sharciga lumo waxaa abuurmaya isku dhac iyo khilaaf iyo dhibaato hase yeeshee hadduu sharciga ku qotomo sharciga ku shaqeeyo anshixiisa toosiyo waxaanu helaynaa bulsho horumarta isku kalsoonaata kalsooni buuxdana maxay laga helo maxkamadaha adeeg bixinaya qiimayntan natiijada ka soo baxda iyo kormeerida aan soo sameynay gabagabada sanadka labada bilood fasaxa lagu jiro wixii loo sixitaan u baahan ayay maxkamaddu samaysaa marka wixii ka soo baxay dhammaantood waxay noqon doonaan in go-aan lagaga qaato gabagabada sanadka labada bilood ee fasaxa lagu jiro maxkamaddu waxay shaqeeyaan 10 bilood oo joogta ah oo aanay fasaxa lahayn 10ka bilood marka wixii caqabadaha iyo dhibaatooyin waa la ururiyaa haddii aanay xaalad degdeg jirin muddada fasaxa lagu jiro ayaa wixii sixitaana la sameeyaa marka waa muddada keliya ay fursadaha leeyihiin shaqadiina caqabad ku noqonaynin garsoorkuna uu bannaanka joogo shaqadiina dib u habeyn si dhib yar loogu samayn karo marka gabagabada iyo natiijada ka soo baxda anagoo eegayna qiimayntan wixii ka soo baxa iyo kormeeradii aan soo sameynay ee guddiyadu soo sameeyeen waxay noqon doontaa natiijadu in aan sameyno labada bilood oo dambeeya sanadkan 11aad iyo 12aad oo ay maxkamaddu xidhan yihiin dib u habeyn dhammaystiran inaan sameyno oo rajaynaynaa wixii caqabadaha jira in dib loo soxo runtii wanasinaag bay noo tahay in sidan oo kale gacanna loogu siiyo sidii ay si munaasabadan oo kale u qabsan lahayd si sharafa waxaa kale waan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo nidaamka dib u habeynta ee maxkamadaha laga wado oo in badan ay noo qabsoomay habka shaqada shuruucii la soo saaray dib u habeynta goobaha lagu shaqaynayey iyo inta inoo hadhay oo aan rabno inaan dhamaystirraba gacanta ugu badan waxaa ka geystay golaha xildhibaanada oo hogaaminaya nidaamkan dib u habeynta ee maxkamadaha ka socda oo aan dalka intiisa kale la wadaagayno runtii aad baan uga mahadnaqaynaa iyaguna gacanta iyo garab istaagga mar kastaba ayna garab taagan yihiin waxaana rajaynaynaa in guul laga gaari doono isbeddelkaas lana jaan qaadi doono deegaan waddanka intiisa kale anagoo ku rajo weyn in aynu isku dayno inaynu noqono hormuud waxaana ku noqon karaa dadaal iyo isku duubnaan iyo in gacan la iska siiyo innagoo isku duuban dhammaanteed meel walba waynu gaari karaa niyad wanaag iyo gacmo isqabsi baana wax walba ku suurtagelin karaa hay-addan garsoorka marka muhiimaddeeda iyadoo leh oo aan runtii ku kalsoonnahay in siyaas ahaanna loo soo jeedo maanta in la gaadhsiiyo masabkii ay lahayd waxaan rajaynaynaa in wakhtiyada soo socdana ay noqon doonto sidan iyo si ka qurux badan haddii alla idmo aad iyo aad baad mahadsantihiin